قول مداية قول مداية قول مداية قول مداية قول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان وسلام يا تايرياشا أساسياشا يا ضمان أنت مداية وهلكا تاجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka xigta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii halkan ka soo qayb gashay iyo nimankii halkan dadkii halkan soo abaabulay iyagana waa u mahadcelinayaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. tan labaad waxaan rabaa inaan wax yar sharaxo mideeye waa maxay mideeye. annagu magaca mideeye waxa weeye waa ururkii midayn lahaa Puntland, waa ururkii midayn lahaa Soomaaliya, waa ururkii midayn lahaa East Africa insha Allah. waana aragteen saan ku bilownay iyo suu ku bilowday mideeye reer keliya ma ahan, nin keliya xoogaa lacag la ordiya ma ahan, nin dawlad ku fadhiya ma ahan, waa idinka mideeye. qof kastoo halkaa taagan waa safiir mideeya. haddeer waxaan u tartamaynaa oo aan u taagannahay waa golaha deegaanka 3 degmo Qardho, Ufayn iyo Eyl. waxaan idinka codsanaynaa xildhibaanadii aan soo xulnay waa dad karti leh, waa dad aqoon leh, codkiina inuusan u kala harin. codkaagu yuusan ku ciilin. maanta waxaad dooranaysaa qofkii masiirkaaga ka tarin lahaa. waxaan idinka codsanaynaa marka aad iyo aad inaad uga shaqaysaan, inaad codaysaan, midayna codaysaan insha Allah. mideeye guul mideeye guul mideeye guul. waxaan kaloo rabaa inaan wax yar ka idhaahdo maadaama mideeyo aan qorsheynayno uuna yahay urur Soomaaliyeed. dadka Soomaaliyeed waa isku mid, waa dad walaalo ah, dad kala bahbah ma ahan. maalmahan waa la socotaan dad Soomaaliyeed in laga soo rarayo magaalo Soomaaliya ka tirsana. waxaan cambaaraynayaa maamulka Somaliland. waan aaminsanahay dadka reer Sool inaysan raalli ka ahayn. maamulka Somaliland baa ka dambeeya, ha ka waantoobaan. Soomaali waa isku mid, way isku mid bayna ahaan doontaa, waxaana waa dhammaan doonaan insha Allah. qof walba waxaa xusi doonta taariikhda iyo meesha uu wax dhigo. waana guulaysanaynaa. khayr badan baa idin rajaynaynaa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. mideeye guul. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.